xagaaga daawaday waqti wanaagsan dhowaan ayay ahayd wafdi ballaaran oo la sheegayay youtuberley ahaa kuwaasoo booqday jaamacadda camuud kabacdii booqashada jaamacadda camuud ayaa waxaas dhacday ninka loo yaqaano Edwin oo bedelay dhammaanba khariiradii jaamacadda camuud sida aad ka arkaysaan hortiina. Edwin cadeymahan ku hayno waa kuwan arrin dadka wareerisay maalmahan oo qolyo youtuber oo reer Muqdisho oo urur iris Soomaali leeyahay samaysanaydi oo saa u wareegay waqooyi ama Soomaaliland saa u wareegay baa dadka waaray maanta waxa qabyaaladooda la doontay jaamacadda camuud. horta gobolkan awdal inta badan dekedna ma lahayn airportna ma lahayn meel wax ka soo degaana ma lahayn meesha ay dadku inta badan ay ilaah dhaqaale ka heli jireen waxa uu weynay jaamacadda camuud. halkaas way dhigan jireen dad kala duwan dhalinyaro oo ka yimaaday Soomaaliyada iyo Somaliland meel badan ka yimaaday sida Qardho ama Boosaaso ama haato gede iyo meelahaas gobolada kale Jubbooyinka haata banaadir haato meel badan oo kala duwan Sool iyo Sanaag. tiina maanta waxa la aaday durmaan qabyaaladeed mid baa waxaan leeyahay maayirka Boorama Baradhe Mr. Baradhow muuse inuu ku doortay waa haysataa oo ku magacaabay sida team Baradho muuse ku magacaabay haysataa sharaftiina waad kaga ciyaartay saasad youtuber hor wareegaysa u daba wareegaysa magaalada Boorama waa dayacanta halkii wadaad gaamarka maalinka horeysay ku shubtay dad baa qaaday. midna waxa leeyahay madaxweynaha jaamacadda camuud waa labada maxamed Baradhe iyo maxamed muuse kan camuud haysta waniyo magacii waa dishay maqaayadan urur Soomaali company ula bax ama waxa weeyaan urur Soomaali express ula bax dad bedeshay xawaarad lacagaha sarifta way waan ognahay dad baa oran doonay inay way xaq u leeyihiin inay booqdaan kan okay waan ognahay ha soo booqdaan iyagoo bulshada iyagoo shacaba iyagoo salaadiilo dantooda u socdaa soo booqdaan laakiin dad intay soo degan yiri waxa weey dagaalkaas la saxaanad baan dawladda ka difaacayna wiilka reer la saxaanadna uu dhiganayo jaamacadda anaga la joogo reerkaygiina waxa weeyaan waa qaan dad waxa lagu siixiyaa waxa la aqoon baad leedihiin baradhaha cuntaan waxaad ku suxurataan leen macaan gaas baad ku sii joogtaan iyo wax noocaas oo say iskaga aamusnaayeen qofka aqoonta leh ma hadlo aqoonyahan baa tahay waxa laga sheekeeyo anaga hadaba saddexaad ku dhacnay waxa laga sheekeeyo kanay ka baxday anaga hadaba saddexaad ku dhacnay warkayga dhageysta arrintaas dib ha looga noqdo ceeb weyn baa jaamacadda soo hoysin urur Soomaali mid baan leh abtirsiinta hadda lama sameeyo ururkan waxa sameeyay Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal oo uga dan lahaa gaashaan buuraysi siyaasadda xilligii Soomaaliya ay Soomaaliya tahay haddii cidi gaashaan markaa xilliga dadku qabyaalis kuma gaashaan buuraysan jireen wax isku gaashaan buuraysan jireen cid walba cid ay fahanto Sheekh Isxaaq baa markaas gaashaan buuraystay hawiye haddii anaguna cid baanu gaashaan buuraysanay USB la dhul bahantay iyo ay ka tirsanaayeen iyo warsangeli haddii abtirsiin laga dhigayo gaashaan buuraysi kasta xasan sheekh maxamuud shalay wuxuu gaashaan buuraystay Axmed Madoobi iyo baalkii muxuu dani markuu doorashada ugu shubayeen codke intaasna isku reer noqdaan gaashaan buuraysi iyo nasabiyada la kala garan waayay intaasna isku reer noqdaan muusana mid baan leh muusu qadiyada la sacaanood waad ku jabtay qadiyada la sacaanood qaramada midoobi daarood ku geeyeen daaroodka ku wareertay qaramada midoobi geeyeen kolaha ma ka taala Union ka taala igad baytaal African Union ka taala adiguna waxaad ka raadinaysaa Saacadiye Goomay iyo Abubakar Hoolay iyo Hebelo Xasan Qaari baad ka raadinaysaa qadiyada la sacaanood waa ku fashilantay waa ku jabtay qalbiga Allah kaaga reeba la sacaanood qalbiga Allah kaaga reeb qoliyihii la soo dhaweeyay arkay maalin dhow tooyidi Boorama markay tageen bay dhawaan amaanay naga duuba islaamba waan gabiyaabay sareer barkabay ku furta dhageysan Samarosi ciidsati waa fiicana Samarosi ciidsati alxamdulillah Samarosi ciidsati wala dhugu waa barwaaqaysay roobkiina waa day alxamdulillah Samarosi ciidsati afar markay waa loo sacbiiba gabiga marka la sugi dadku waxa moodi marka hore inay xaaladda ka horan fiicantii safarano saytiino ad wax noocaas moogta gabigi dhimaya way gabayda ma sha Allah saalidaba waa Saacadiye Goomay waa abwaanadii ugu weyneed waa dahaba qaar ee gobolka Banaadir waa abwaanada laga daba dhufan waxa Ilaahay gabay ka dhigi maayad la timaadeen meesha ilmadeer yaalo ma naga xidhaan hawiyo mid kale anagu ma anaga dadkii aad la gasheen diilka ma nihin
runa haddaad rabtaan dadka dhiilka la gasheen manihin haddaa cid wax kaga difaacaysaan orod masjid cali guduud iyo bakaaraha arsenaasha kaga difaaca runa haddaad rabtaan wax urur Soomaali la yiraahdaana haba yaraatee haba weynaatee ma jirto khayaaliga nafta ka saara wax dhalasho ma jirto aanu soo doon sanaan hadda galay ma soo doon sanad kadib waxa la iga sheekeeyaa maanta waxa tahay maanta lagu dhaasoo sanad kadib ogaadeen baa ka hor soo qaata ma sheekhaal baa tahay lagu maanta ma dhageysanaya ma ka dhageysanaya marka jiraan cayb ay idin qabay dhibaataydu waxay laakiin haddaad rabtaan inaad soo booqataan gobolka Hawiyow idinko siina soo booqdo walba haddaad dad noo soo dirsan suldaana ee noo soo diray kii habarkidir kii xawaadla kii mursale iyo kii abgaalmay annaga islaama saacadiyo gooma iyo heblaaye qaar iyo fanaanin iyo youtuber iyo tiktoker noo soo dirna waxa aad iyo niga dhageysan noo soo dira